Asalaamu calaykum daawadayaasha qiimaha leh ee Zabo Media. Muuqaalkan maanta waxaan idinla wadaagi doonaa liiska 9 ciyaaryahan Muslimka ah ee ugu taajirsan sanadkan. Ma aha oo keliya inay ciyaartoy waaweyn yihiin, balse sidoo kale waxay leeyihiin maal badan oo ay ku heleen kartidooda, sumcaddooda iyo shaqadooda adag. Haddii aad doonayso inaad ogaato cidda ugu hodansan ciyaartoyda Muslimiinta ah, ila joog ilaa dhammaadka. Karim Benzema Faransiiska wuxuu u wareegay kooxda Al Ittihad, wuxuuna helaa mushaar aad u weyn oo sanadkii ah. Intaa waxaa dheer heshiisyo xayeysiis iyo sumcad weyn oo uu leeyahay. Mohamed Salah ciyaaryahanka Liverpool wuxuu leeyahay mushaar sare, heshiisyo xayeysiis sida Adidas, Pepsi iyo Vodafone Egypt waxay ka dhigayaan mid ka mid ah ciyaartoyda ugu taajirsan Afrika. Paul Pogba inkasta oo dhaawacyo ay horyaaleen sanadkan, Pogba wuxuu hore u dhistay hanti weyn. Mushaarkiisii Juventus iyo heshiisyadiisa Nike iyo Amazon ayaa weli ka dhigaya mid taajir ah. Sadio Mane wuxuu lacag badan ka helay kooxda Al Nassr. Intaa waxaa dheer, wuxuu leeyahay guryo, maalgashi iyo mashruucyo samafal oo uu uga faa'iideeyo dadka danyarta ah. Riyad Mahrez kadib markii uu ka tegay Manchester City, wuxuu ku biiray kooxda Al Ahly oo uu ka helo mushaar weyn. Waxa kale oo uu hayaa heshiisyo xayeysiin iyo ganacsi gaar ah oo Afrika ka socda. N'Golo Kante waxaa lagu yaqaanaa xishood iyo iimaan, balse hantidiisa waa ballaaran. Waxa uu leeyahay dhismayaal, guryo iyo maalgashi badan. Mesut Ozil inkasta oo uu ciyaarta ka fariistay, weli waa milyaneer. Hantidiisa waxaa qayb weyn ka ah heshiisyadii Adidas, ganacsiga uu leeyahay, maqaayado, dhar, kripto currency iyo maalgashi uu ku sameeyay Turkiga. Achraf Hakimi daafaca PSG wuxuu kasbaday magac iyo maal. Mushaarkiisa, xayeysiisyada iyo hantida uu leeyahay ayaa si isa soo taraysa u kordhaya. Edouard Mendy wuxuu hore uga tirsanaa Chelsea, hadda Al Ahly. Wuxuu leeyahay ganacsi iyo maalgashi gudaha Senegal iyo dibadda. Gunaanad ciyaartoyda Muslimka ah waxay muujiyeen in adkaysi, karti, iimaan iyo niyadsami lagu gaari karo guul weyn iyo maal fara badan. Lacagtooda ma aha oo keliya in ay ku raaxaystaan, balse qaar badan waxay ku caawiyaan dadka baahida qaba, taasoo dhiirigelin u ah jiilka cusub. Haddii aad jeclaatay muuqaalka, like saar, comment ka tag ciyaartoyga aad ugu jeceshahay. Subscribe si aad u hesho muuqaallo kale oo la mid ah.